بسم الله الرحمن الرحيم. وولاشين وان سلامية انت مسلمين تاوردن وان سلامية. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. وان لي هاي سلام كبعدي وحان ربا مانتا ما ربيننا فيديو رنتي سمايو ما ربين ديارنا وما نهين لكن وحشوق يقول نقضي بان ايان دين سدا oo ah maxay hayday arin ku saabsan madaxweynaha cusub maxamed cabdilaahi farmaajo oo ah waxa weeyaan runtii inagu Soomaali baynu nahay ma naqaano qofka maxay hayday bal taariikhdiisii baara ma naqaano muxuu ahaan jiray ma naqaano muxuu soo qaban jiray ma naqaano muxuu soo sameeyay ma naqaano waxa weeyaan waxaynu nahay budladuul waxaynu la haadinaa qof laba qof baa oranaya hebla rabaa taw way kula taw oranayaan kulligood dhikaliya tan wax ka maqalaa waxa weeyaan horta aynu hubsano qofkani muxuu yahay muxuu ka soo shaqayn jiray muxuu soo qaban jiray maxay hayday muxuu ahaa dambi wadanka ma ka soo galay dhibaato ma soo sameeyay ma naqaanaba laakiin adduunka inta kale qofka waxa la eegaa muxuu ahaa baa la eegaa muxuu soo ahaan jiray maanta waxaan soo ogaaday oo idin sidaa intii ogina horta way og tahay oo way arintan way ka nixi doontaa waxaan oran doonaa xagee bay ka soo heshay laakiin intii aan ogeyn baan rabaa inaan u sheego oo u iftiimiyo ninkii la doortay shalay ee loo sacabatumayay ee la lahaa wadanka adduunka wax ka bedelaya oo dadkii dhibaatooday iyo dadkii silcaayay 25 sanadood qaraxo ka dul dhacayay ay wax ka bedelayaa la lahaa in maanta taariikh xumo lagu soo saaro ad baan uga xumahay waa maxay markaa su'aashu waa maxay ninkii farmaajo waxaa la soo ogaaday inuu ina Soomaaliyeed oo magaceeda la yaqaano oo muuqeeda la yaqaano oo aabaheed la yaqaano oo Soomaalida majority-ga inta ugu faraha badan ya ay yaqaanaan aabaheed Allah yaa raxman raximin wuu dhintay maantana Puntland ka ah xildhibaan oo joogta oo xaadira oo nolo life ah inuu ku kufsaday Muqdisho Maxamed Siyaad Barre markii dawladdiisa joogtay inuu ku kufsaday oo faraxmeeyay inantaas ayaa la soo cadeeyay waxaa la soo cadeeyay in uu khatar ahaa markuu joogay maxay ahayd Muqdisho inuu gabdhaha yar ee Soomaaliyeed inuu faraxmeyn jiray toosna taa faraxmeeyay toos aanu indhahaba saabsanba asagoo isku halaynaya dawladdii markaa jirtay markii la ogaaday inantaa inuu faraxmeeyay wax allaaliya waxay ka qabteen may jirin wax allaaliya wax laga qabtay may jirin haddaba waxaan leeyahay inantii haddii videoga horta waxaan ka codsanayaa videoga inaad share gareysaan inantii Puntland bay joogtaa waxaan ka codsanayaa inay ninkaa ku soo saarto maxkamadda adduunka inay keento oo ay ashkatayso oo maxaa la yiraahdaa aynay qarsan dhibaatadii gaadhay iyo dhibaatadii soo martay markaas inaanay qarsan waa ina Soomaalida waan ka naxayaa maxkamadda adduunka ha keento ha soo saarto arintaas waxba yaanay aamusin waxba yaanay xishoonin maanta waxa weeyaan waqtigan aynu ku jirno 2017 waxa weeyaan qof kastaaba codkiisa iyo wuxuu doonayo inuu maaragtay ka hadlo iyo wixii markaas uu hayo arin iyo wixii dhibaato soo gaadhay qofku uu soo bandhigi karaa cidna cid lama yaabto weligeed bahablaan la kufsan jiray laakiin ninkan madaxweynaha maanta noqday de waxa weeyaan inantaa uu kufsaday waxaan ka codsanayaa inay soo saarto arintaas oo aanay aamusin oo aanay ku jirin mara hoosteed inay qarsato maaha dhibaatadii soo gaadhay maaha inay aamusto maaha inay istiraada leedahay maxay ahayd ceeb bay kugu tahay ceeb kugu maaha adigu maad u bareerin dhibaatada ku heshay umaad bareerin waxa weeye waa dhibaato lagu gaarsiiyay marka inaad adigi aamusto
oo aad maxay aad adduunka u soo bandhigi weydo wallahi billahi waa ayaan darro weyn please waxaan kaa codsanayaa inaad arrintaa wax ka qabato oo aad soo bandhigto oo aad maxay ka hadasho inantaas magaceeda waan aqaanaa inaayaheeda waan aqaanaa Puntland bay joogtaa haddii videogaasi ku soo gaadho ama aad gaadhsiisaan waxaan ka codsanayaa inay soo baxdo oo ay ka soo baxdo daaha dabadiisa oo ay soo bandhigto arrintii iyo dhibaatadii gaadhay berigaas waqtigaa maxamed siyaad barre uu joogay maxay dawladda maxamed siyaad barre ay joogtay inantaa dhibaatadii gaadhay inaad soo bandhigtaa baan u baahannahay inaad waxaan wax kaala qabanaynaa Yurub baanu joognaa annaga maxkamadda u gudbinaynaa annaga dhibaatadoo dhan madaxa saaranayna soo bax please soo bax ka soo bax daaha hoostiisa maanta wax la qarsadayaan ma jirto gabdhihii Soomaaliyeed la kufsan jiray maxay dhibaato shalay maanta wad baheed markii la kufsanayay gabdho Soomaaliyeed wallahi billahi tallahi waan ka xumaado xitaa kamaan hadlin waxaan uga hadli waayay waxaan ogahay inaan ka deeb maartay aan qaracan ka qaadayo marka waxa weeyaan inanta waxaan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa Yurub baan joognaa annaga maxkamadda adduunka u gudbinaynaa soo bax oo soo hadal oo nala soo hadal السلام عليكم.